assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ku soo dhowaada barnaamijka cusub ee qisooyinka nebiyada. qisooyinka waxaa idinka sheekayn doono anigoo ah al-ustaad cabdilcasiis cali. barnaamijkani waxaan ugu talagalay inay ka faa'iidaan ummadda soomaaliyeed iyo dhalinteeda iyo carruurteenna dhammaan meel walba ay joogaan. waxay barnaamijkan kala socon doonaan qisooyinka nebiyada laga bilaabo qisadii nebi aadan ilaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam. keliya midaan iga ilaawin inaad saarta like, subscribe, share si aad noola socoto wax walba cusub aan soo dhigno. bismi illaahi araxmaani araxiim, walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, waasalaatu wassalaamu calaa ashrafi alambiyaai waalmursaliin. mar labaad iyo barnaamijkeena qisooyinka nebiyada, nabadgelyo korkooda ahaatee. qisooyinkeena waxaan ku daafuri doonaa qisadii nebiyullah aadam calayhi salaam. qisada nebiyullah aadam intaan guda gelin, koonkani alle keligiisa ayaa ku noolaa, cid kama horeynin, cidna lama nooleen. alle keligiisa ayuu ahaa. shayga koowaad oo alla abuuray wuxuu ahaa qalinka. alle qalinka markuu abuuray kadib wuxuu ku amray inoo qoro wax walba oo koonka ama dunidan ka dhici doono. qalinka kadib alle wuxuu abuuray dhulka, wuxuuna ka dhigay 7 dabaq iskor saaran. kadib wuxuu ku dul abuuray buuraha iyo geedaha iyo webiyada iyo badaha. intaasi alle wuxuu ku abuuray 4 maalmood. kadib alle wuxuu abuuray samada, ayadana 7 dabaq ayuu ka dhigay. intaasina wuxuu ku abuuray 2 maalmood. kadib alle wuxuu abuuray carshigiisa, wuxuuna dul saaray samada ugu sareyso dusheeda. kadib alle koonka ayuu abuuray sida qoraxda, bisha, xidigaha, meerayaasha, wuxuuna ku xijiyey abuurista malaa'igta. malag walbana shaqo gaar ayuu u dhiibay. kadib alle jinniga ayuu abuuray, wuxuuna ku amray in ay dhulka degaan oo ay caabudaan, balse dhulka ay fasahaad ku faafiyeen, dhiigna waa ay ku daadiyeen. jinniyaasha waxay ahaayeen boqortooy sida maanta ee bini'aadanka, oo awood ay dhulka ay ku leeyihiin, awood ka sarraysa ay dhulka ku lahaayeen, laakiin way isbaabi'iyeen. allana wuu duleeyey dhammaantooda. abuurista nebi aadam calayhi salaam. allah subxaanahu watacaala intuusan nebi aadam abuurin, malaa'igta ayuu ku yidhi, waid qaala rabbuka lilmalaa'ikati innii jaacilun fi lardi khaliifa qaaluu atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku اddimaa'a wanaxnu nusabbixu bixamdika wanuqadisu lak qaala innii aclamu maa laa taclamuun. oo aayadda macnaheedu ay tahay, adduunka ayaan ku abuuraa noole tarmo oo isdhexla. malaa'igta way ka yaabeen. allah ayay ku yidheen, miyaad ku abuuraysaa noole dhulka fasahadiya oo dhiig ku daadiya? alla wuxuu yidhi, waxaan idinka ogeyn ayaan ogahay. nebiyullah aadam maxaa laga abuuray? siduu alla qur'aankiisa inoogu sheegay, wuxuu yidhi, walaqad khalaqna alinsaana min sulaalatin min tiin. aayaddani waxay daliil u tahay in nebiyullah aadam laga abuuray ciid ama dhooqo. allah subxaanahu watacaalaa ciidda adduunka ayuu ka qaaday ama dhulka kale wuxuu ka qaaday meelo badan oo isugu jira cara gaduud, cara madow, cara jaalo, ama ciid walba oo adduunyada maanta aan ku aragno ayaa abuurka aadam laga sameeyey. sidaas darteeda ayay bini'aadanka midibyadooda u kala duwan yihiin. qaar waa caddaan, qaar waa madow, qaar waa maariin. waxaa sababay abuurkii nebiyullah aadam calayhi salaam. ilaan dhammaanteena asaga ayaan faraciisa nahay. sidii ayuu alle subxaanahu watacaalaa ciidda isugu daray ciiddii dhooqa markii ay noqotay, qaab ayuu u sameeyey iyo suurad. sidaasi ayuu ugu tagay. malaa'igtii waa ay la yaabnaayeen abuurkan oo jooggiisa aad u dheer yahay, oo gaarayo ilaa 60 mitir. ibliis asagana gees ayuu ka fadhiyey, uu fiirinay, talow shaygani muxuu noqon doonaa? abuurka nebi aadam calayhi salaam muddo badan ayuu sidaasi ahaa, dhagax meel iska yaalo, aan ruux ku jirin. arrintaasi hal qof ay murug ku haysay, waana ibliis. maalin maalmaha ka mid ah, ibliis wuu iscelin waayey. abuurkii nebi aadam ayuu ag imaaday oo ku dul wareegsaday. markuu arkay inuu dhaqdhaqaaq lahayn, afka ayuu ka galay.
gudihiisa ayuu soo fiiriyey, wax dhan kuma jirin. kadib ibliis wuu iscajibiyey. wakhtigii uu alle ugu talagalay markii la gaaray abuurkii nebi aadam, ruux ayaa lagu afuufay. ruuxa jidhkiisa meeshii ay ka gaarto waxay yeelanaysay hilib iyo dhiig. ruuxa madaxiisa markii ay gaartay, nebi aadam wuu hindhisay. nebi aadam markuu hindhisay wuxuu yidhi alxamdulilah, wuxuuna noqday ruuxii ugu horeeyey oo dhahaa alxamdulilah. kadib abuuristiisa markay dhammaatay, alle ayaa nebi aadam ku amray inuu malaa'igta soo salaamo. nebi aadam malaa'igta ayuu u tegey, wuxuuna yidhi assalaamu calaykum. ayagana waxay ugu jawaabeen wacalaykum assalaam. alle ayuu u soo laabtay. kadib alle wuxuu ku yidhi tani waa salaantaada adi iyo faracaago idil. kadib alle subxaanahu watacaala nebi aadam ayuu dusha ka salaaxay si nebi aadam fariiciisa dhammaan u tusiyo ilaa ka maalinta qiyaamo dhalan doono. nebi aadam fariiciisa asagoo fiirinaya wuxuu ka dhex arkay nin sujuuddiisa ifayso, wejigiisana qurxoon. markaas ayuu alla weydiiyey, rabbiyo ninkani yaa waayo? alla wuxuu ku yidhi waa daa'uud. nebi aadam wuxuu yidhi ilaa meeqa sano ayuu noolaana? alla wuxuu yidhi ilaa 60 sano. nebi aadam wuxuu yidhi allow cumrigayga 40 sano ka sii. sidaas ayuu nebi daa'uud ku gaaray 100 sano. nebi aadamna cimrigiisa wuxuu noqday 1000 sano laga jaray 40 sano. qaybtii koowaad ee qisadii nebiyullaahi aadam halkan aan ku sameynaa. ilaa qaybta dambe laga gaarayo hanaga ilaawin like, subscribe iyo share. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.